بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. ما بنانا إن إمامك لغا hormaro bal waa dembi weyn. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaaday inuu yiri miyaanu ka baqayn qofkiin haddii uu madaxa kor u qaado imaamka hortiis in ilaahay madaxiisa u bedelo madax dameer ama muuqaalkiisa muuqaal dameer. Bukhari iyo Muslim ayaa wariyay xadiiskaas. qofkii si ku talagal ah imaamka uga hormara salaadiisu waa baatil sharcina maaha. سمع الله لمن حمده. sidoo kale inaad imaamka isku mar samaysaan ficilka maaha arrin saxa. سمع الله لمن حمده. sidoo kale inaad imaamka wax badan ka dib dhacdo sax maaha. sida waajibka ah waa inaad imaamka bacdigii samayso sidiisa oo kale isla markiiba. سمع الله لمن حمده. mawduuca saddexaad waa meesha gacmaha la saarayo marka samica allahu la yiraahdo. qaladaadka dadka qaarkiis sameeyaan waxaa ka mid ah haddii uu imaam yahay ama dadka imaamka ka dambeeya inuu qofku yiraahdo samica allahu liman xamida isagoon ku darin rabbanaa walaka alxamdu iyadoo ay waajib tahay in alle lagu xamdiyo. سمع الله لمن حمده. intaa kadib walakal shukru in lagu daro ma habboona sharcina maaha sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay. سمع الله لمن حمده. ninkan aad arkaysaan wuxuu sameeyey laba qalad. tan koowaad sunnadii ayuu khilaafay isagoo gacmihiisa kor u taagay. tan labaad isagoo indhihiisa xagga cirka ama xagga samada u jeediyey. nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka digay arrinta oo wuxuu yiri waad iska dhaafaysaan inaad indhaha cirka u taagtaan ama waxa idinka lumaya muuqaalka indhaha. الله أكبر. rukuucda noocan ama sidaan ah waxay khilaafsan tahay sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay. rukuucduna sax ma aha ilaa aad gacmaha saarto labada jilib. rukuucda sidaan oo kale iyadana waa ay khilaafsan tahay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam. sidan aad arkaysaan ayaa saxiix ah in dhabarka qofka tukanaya uu sinaado. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri hamaansigu ama halaaqadu waa wax shaydaan ka yimaada marka qofkii arrintaasi qabato salaada dhexdeeda ha isku celiyo intii uu karo. qofkii salaada sidan oo kale u tukada waxa uu ka tagay tiir ka mid ah tiirarka salaada kaasoo ah in salaada la tartiibiyo. sida la ogyahay qofkii tiir ka mid ah ka taga tiirarka salaada salaadiisu ansax maahan. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri ninkii salaada sida xun u tukaday sida kan hortiina ka muuqda ku laabo salaada oo tuko mar kale. markii uu baahday in sida saxda ah loo sheegana waxa lagu yiri haddii aad salaada u istaagto dheh الله أكبر. kadib akhri quraan intii ku fudud. الحمد لله رب العالمين الرحمن. kadibna rukuuc adiga oo tartiibinaya. kadibna rukuucda ka soo istaag oo xogaa yar taagnaaw. سمع الله لمن حمده. kadibna sujuud oo tartiibi. الله أكبر. kadibna fariiso oo tartiibso. الله أكبر. sidaa samee salaada dhammaanteed ayaa lagu yiri. Bukhari ayaa xadiiskaa wariyay. الله أكبر. sujuudda sidaan ah ayaa ah midda saxda ah sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay. markaad fariisanaysid inaad jilbaha ka hormariso gacmaha. waxyaalaha khaladka ah waxaa ka mid ah inaad sanka kaliya dhulka dhigto adigoon wejiga dhigin. waana ficil sunnada khilaafsan. ama inaad sujuuddo oo wejiga kaliya dhulka ku qabato adigoo sanka dhulka dhigin
iyana waa shay sunnada khilaafsan. inaad sidan oo kale gacmaha dhulka u dhigato waa arrin karaahiyo ah. sujuudda noocan ah iyadana oo aad gacmaha ku qabato labada dhinac iyana waa ficil sunnada khilaafsan. lugahaaga u kor u qaado markaad sujuudsan tahay, tan waa shay salaada kaa buriya haddii aad sujuudda sii wado. sidaasoo kale lugaha oo aad iskor saarto waa ficil sunnada khilaafsan. sidoo kale inaad faraha foodooda kaliya dhulka ku qabato waa shay aan sunnada waafaqsanayn. sidoo kale inaad faraha foodooda kaliya dhulka ku qabato waa shay sunnada khilaafsan, ama aad farahaaga laabto. sujuudda saxda ah waa inaad dhulka dhigto 7 xubnood: wejiga iyo sanka, labada gacmood, labada jilib, iyo faraha lugaha qaybtooda hore waa in labadaada gacmood ay ka durugsan yihiin labadaada dhinac. calooshaada iyo jilbuhu waa inay kala durugsan yihiin. lugaha qaybtooda hore iyo cajiradu waa inay kala durugsan yihiin. labadaada gacmood waa inay dhulka kor uga kacsan yihiin. habkan ayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyey inaad faraha u laabto, midda suulka ku xigtana aad taagto. sidanna waa nooca labaad ee saxda ah. farta dhexe iyo suulka inaad isku qabato oo wareeg ka dhigto, farta horena aad taagto. labada noocba waa laba nooc oo saxiix ah. markii ashahaadka la gaaro ilaa dhammaadka, الله أكبر. qaybta afraad waa inta mar oo gacmaha kor loo qaadayo. marar badan ayaa gacmaha kor loo qaadayaa, waxayna kala yihiin: 1. marka ugu horraysa oo salaada xiranayso. الله أكبر. 2. marka la rukuucayo. الله أكبر. 3. marka rukuucda laga soo kaco. سمع الله لمن حمده. 4. marka laga soo kaco ataxiyaadka koowaad. الله أكبر. xilliga la gaaro ataxiyaadka koowaad sidan ayaa sax ah in lugta bidix loo dhigo, tan midigna la istaajiyo. laakiin markii la gaaro ataxiyaadka u dambeeya waxaa sunno ah sidaan aad arkaysaan in loo fadhiisto. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. sidan oo kale waa qalad weyn, sababtoo ah ma aadan raacin imaamka. waxaa waajib ah inaad sugto ilaa imaamku salaada ka dhammeeyo, yacni labada salaamood midig iyo bidix. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. rasuulku sallallahu calayhi wasallam markii uu salaada dhammaynayo waxa uu u jeesan jiray midig iyo bidix. laakiin sidan oo kale in madaxa la ruuxo ama labada gacmood la dhaqaajiyo, nabiga sallallahu calayhi wasallam lagama soo warin, sharcina maahan. ليس لي حول فإني بك حولي وعلي، بك حولي وعلي، في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليك، أنا محتاج إليك، أنا محتاج إليك. يا رب يا رب يا رب نور دربي، أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين، حب خير المرسلين، وبه أكرمت قومي وجميع العالمين. وجميع العالمين.